ربنا أن كبقنا جل جلاله عبسيد إلهي وحا أساسه حب الله حب الله مركو كوكوده مباد إلهي كبقيسه أحب الخلق إلى الله وحي أهايان أنبيدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أتقى الناس لله ذاتك كان أقول تقوى بضن أيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما كان إنسان كأنت وربك يقانو وجعل يهي وتقوى بضن يهي قفك إنت كالي منافع ذا تقوى ذا مركا خير الدنيا والآخرة إلهي تقوى ذا سور لحدقي إلهي تقوى ذا سور لحدقي كل كاد إلهي كعبسته خير الدنيا والآخرة إلهي واكوسينيا أمور تهذو رب إلهي كو سهليا وعدك يا بلنقاتك إلهي وإنا كو كلسونانو إلهي مركو إلهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهذا الربأ أو صحة أذيك أنبا حسب يقين هذا أنت اللي أكتهي يقين هذا أنت اللي أكتهي أنبي منافع ذا كو كوبنتهي مويه تقوى إلهي هذا التمادو إلهي ودو كو سمين وحكستو كو صوحرنا مخرج با إلهي كو سمينيا أرمها قدام با إلهي كو تيسيرنيا أو كو سهليا فتقوى الله خير الدنيا والآخرة إيا ذي كو كوبان تحي مركا تقوى الله حقا بي خصيصا تقوى الله هذي كو خصيصا تقوى الله في سمعك تقوى الله في بصرك مقلكاغا يا أرقاغا يا دواقاغا يا هذا الكاغا يا عنتدادا يا عبدادا يا نولوشادا guud ahaaneed waa inay taqwadu ay dhehdo way oo ay dhaxgasho way waa inaad ilaahay ka xabsataa waa in awaamirtiisu kula weynaataa manaahida ilaahay uu nahiyena waa inay kula foolxumaataa ood ka fogaataa ood nacdaa naftaadu haba jeclaato laakiin adigu waa inaad ka xarartaa laana waa lagugu ibtilay waa lagugu imtixaanay maxaa lagugu imtixaanay waxyaalo badan oo jeceshahay ayaa lagu yiri iska dhaaf ha u dhawaan waxyaalo badan oo naftaadu kahanayso oo aadan rabinna samee baa lagu yiri labadaas lagugu imtixaanay markaas waxa laga dhigay thawaabuha aljanna wan naar jannadiina maxaa lagu heeraariyay oo lagu xeendaabay wax alla waxay naftu nacabta naartiina maxaa xeendaab looga dhigay wax alla waxay naftaadu jeceshay taqwadiina waa takuhud goominaysa waa تقواك يقودك إن وحي نفتادو أي كهنيشي أو نعبيد احتنبتو أو تقادو أو تهالكو نقوتو وحي نفتادو أي جعلين أتكفقاتو يضو نفتادو جعشين أتكفقاتو كرمك إيا إحسانك إلهي با مركا وحو كميدي هاي مركا هوره مجاهدة لا إمو ونفتاد الله دقالا أو وحي نفتادو كهنيشو سماء أو إلهي جعليه وحين نفتاد جعشهينا كجوكسو إلهي ما أركتي ونعبيه مركضا بإلهي بكون معانينه مركضا بوحد قاريسا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله نوافجي ذاتكي هوري صالحين تاها تقوذوا أي عبسيدة إلهي كعبسين جرين dadkii hore oo kutubta laga akhriyi jiray oo salafu saalixiinta ahaa iyaga warkood ba iska daa anigaygaas hadda barbarigi hore waa iska yara hadda daaba noqday waa weynaaday laakiin barigi uun ki yara uun sidii li oran jiray ki yara harta sheekhan kuwa ugu yara kamid ahayo alwaalid rahmatullah alayhi sidii ki yara marka maalintii yani maalintii ba igu cadaatay ma la oran jiray سان وجوجون بارك أنا جوين هذا لكن بركي هرودن كي يرى بنا حرتان ويرى أو بركا وحن كوذا أنا جاي أسون واحد بدن بعدونك سو قارن بركا أن حسوسته تذكي أن سو قاري زمن كا والدك رحمة الله عليه تقوذ ذو شيء هاي والله يا حالة أن كسوغنا هي شتان بينهما وحوينا ولا حي فرق وينا ولا حي يعني مسجدك حرت جوب جرتي قرآنك كو بران جرتي علومتك لنا كو أخرشان جرتي لكن أساسا واحد حلقة شيخ قرآنك على أخري جري ويريد مالن أن مد أمال لبا أوهن دول كلا دعي آذان أركين يعني تدخل قلوب تود الرقيق بيهاي
waxaan xusuustaa sheekh cabdiraxmaan fool nin la oran jiro ilig jabnaa allahu naxariiste oo xerta ka mid ahaa aayaddan oo wasuquu maaan xamiiman faqataca amcaa'ahum labada sinfi ee ilaahay uu ka sheekeeyey sinfiga jannada webi malab ah webi casal ah webi caano ah webi khamri ah ayay jannadu leedahay walahum fiiha min kuli thamaraati wamaqfiratu min rabbihim kaman huwa khaalidun fi nnaar mid naarta ku waaray wasuquu la waraabiyey maaan xamiiman biyaha kulule naarta oo kale ah walciyaadu billaahi oo faqataca amcaa'ahum mindhicirkoodii biyahaasi ay googooyeen waa iska akhrina hadda wakaannana xajar habeen waxay ahayd ramadaan bay ahayd bacda salaati taraawiix juz baa la akhriyi jiray aayaddaasaa soo martay weliba isagu ma akhrinaynin qof kale akhriyay haadaa akhuuna sheekh cabdiraxmaan allah yarxamuhu 3 maalin iyo 3dooda habeen oo isku xigta ayuu oohintii kala joojin waayey oo weliba soom bay ahayde afur ma afuraynin mana suxuuranaynin 3 maalmood iyo 3 habeen isku xigta oohinun mar alla markii lala hadlana aayaddaasuu ku celiyaa u akhriyaa un wayn kaan quluuba annaasi quluubtoodu siday bay ahayd waan la yaabaa habeenna sheekha oo salaatu lcishaa lagu jiro suuratu ida samaau nshaqad uu akhriyey marka uu marayo faama man uutiya kitaabahu waama man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi fasawfa yadcuu thubuura wayaslaa saciira nin xerta ka mid ahaa waaba noolyahay hadda liannahu uu noolyahay magaciisa idiin sheegi maaye ayaa saa sidii loox ama khashab alwaax oo kale ayuu dhulka qadaadka ka bilaabay intuu sarajoog ka dhacay halkaasuu ka bilaabay yani qofku hadduu isgaranayo gacantii waxbuu hormarsan laha mogta halkaasuu ka aniga gadaashiisaan ku tukanaya ilmo yar baan aha markaasaa dhiiggii isqabsaday masaajidkii markaasuu ooy yani maalmo dhan baa la booqonayay aayaddaasuu maqlay dadku saasay ahaayeen quluubuhum raqiiqa ana markaan arrinta waalidka raxmatullah caleyh waana idiin sheega u marayn hadda ka hor yani meesha ay taqwadu shay aan waxbaba ahayn ood garanaysa inaan loo qabanayn ba haddana ka baqi jireen habeen baa marka waxaa jiray meeshaan la oran jiray tarbuunka oo octoobartaa lagu dabaaldegi jiray dowladdii berigaas oo kacaanka waxaa la dhihi jiray 21 octoobar markaasaa la gaardin jiray oo meeshaasaa laysugu maalintaasaa lagu ixtifaal lagu samayn jiray marka intaan la gaarin muddo ka hor taqriiban bil ka hor ayaa xaafaddaas oo dhan waxaa ta'miin iyo waxaa la ilaalinayaa oo waxaa marka habeen baa marka waxaa jiri jiray ciidamada askarta kuwa aan ahayn oo kuwa gulwada la yidhaha baa jiri jiray oo dadkeennii xamar soo gaaray way garanayaane waxay xiran jireen shaati oo cagaar soo mahayn shaati cagaaraya kuwo kaleo waxaa jiri jiray iyagana dhallinta la oran jiray oo bulug xiran waa ninkaas aad ila yaqaaneen surwaal ishaar iyo bulug marka dowladdii berigaas joogtay waxaa ka go'nayd inay dadka ay fasaadaan oo fisqiga iyo fujuurka uu ku faafo ayaa aada u jeclayd marka maxay samaynayaan wiil hal gabar iyo 2 wiil ayaa la isku daraya hal gabar iyo 2 wiil ayaa habeenkaas oo dhan soo jeedaya oo wada soconaya oo mid walba wuxuu xiran yahay surwaalkaas iyo shaatiga buluuga ah ayay xiran yihiin waa 3 marka xaafadaasay marayaan oo dhallinta baa la oran jiray dhallinta ayaa la oran jiray booskoodii hadda shabaababa gaano malin shabaab haddii la yidhaha waa la fasiraa shabaab bay noqonaysaa dhallinta ayaa la oran jiray magarat habeen bay markaa noo yimaadeen gurigii soo gargaraaceen octoobar baa soo dhowaa in guriga la fatasho sheekh alwaalid raxmatullah calayhi caadadiisa waxaa ka mid ahayd haddii oo salaada cishaha marka la tukado hadduu darsi jiro darsi u akhri jiray darsiga hadduu dhammaado oo la kala hoydo guriga haddii la tago waa cashayn jiray marka uu casheeyo kadib sheeka ma jirin horuu ka seexan jiray fidkii waa iska seexan jiray weligay ma arkin isagoo habeen soo jeeday bacda salaat alcishaa walcashaa isagoo soo jeeday maa ra'aytu fi xayaati mar mid ku soo khaldamo oo yani nin madaxa ama nin kadaa u yimaado oo waktigaas sheekha u yimaada adoo arkaya ayuu eryayaa muxuu ku eryayaa bax ma dhahayo
laakiin hadalku u soo koobi saas kadibna hadduu garan waayo wuxuu leeyahay adeerow anigu iska daa baan aho duq baan aho waqtigii la seexan jiray baa la gaaray baaraka allahu fiik adeero bal iska sii soco runta uu sheegi jiray liannahu barnaamij buu lahaa habeenkooda ciyaar ma ahayn mar haddii la gaaro kowda habeenimo waqtiga meelahan ku qiyaasno ayaa qiyaamku iyo u bilaaban jiray iyo acmaasha u bilaaban jirtay marka fiidka haba waa la iska seexan jiray marka waqti aan ku qiyaasayo inay ahayd 10 habeenimo waxa meeshan la yiraahdo ama 4 saac xagga loo yaqaan 4 saac habeenimo ayay ku beegnayd waqtigaas anaga ciyaal yar baan iska soo jeednay way soo garaaceen albaabkii marka waxay dhaheen soo kiciya duqi guriga lahaa waxaa yeelay waa guriga inaan fatashnaan rabnaa anagana waa soo kicinay soo baxnay wala niman baa askar baa dibadda taagan askar baan iska leenahay askar baa dibadda taagano ku doonayo oo waa soo kacayo waa maxayo bismillaah banaanku marka meeshu waa yar mugdi oo nal iyo wax saas ma lagan jeelka kore nal saas iyo waxa ma jiraan marka sheekha uu salaameen naagtii ku dhex jirtay ee surwaalkii shaarka xidhnayd way salaantay isagu ma arka marka inay naag tahay inay gabar tahay ma arko way salaameen sheekha way wada salaameen markay salaameen gacanta ay ku salaameen kadib baa mid iyaga ka mid ah ayaa wuxuu yiri sheekhow kolleyba waxaa lanoo xilsaaray inaan guriga baarno laakiin dee sheekhii weynaa baa tan waa kaa xishoonaynaa marka adeer noo duceey oo insha allahu waxbana ku fatashi mayne baaraka allahu fiik adeer waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waa idin ducaynay khayr allah idin siiyo inuu iska laabtuu damcay markii ay sii tagayeen maca salaama soomay oran naagtii unbaa ka dhex hadashay maca salaama laa xawla walaa quwata ilaa billah dee wixii ka dhacay waaba la ogaa war ma qof dumar idinla socota mar naag baa idinla socota markaasay dhaheen haa gabadh inuu marka dilu damcay la dagaalamo markaasay ka carar iyagii baaba cararayba gurigii ha ku soo noqday habeenkii gurigu wuxuu lahaa dayr buu lahaa wallaahi waan xusuustaa habeenkaasoo in badan habeenkaasoo dhan ma oran karo laakiin in badan intaan soo jeednay oohin iyo wuxuu isku haystay iyo gacantiisu saa u hay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun oohin len ilmo yar markaa tahay oo qof weyn oo ooyaya aad aragtid ma iloobaysid mogta yani axdaaf fara badanaa ku soo maraysay lakiin taasoo kale ma iloobi kartid habeenkii o dhan buu ooyey in badan buu ooyey oo dayrka ku wareegayay hadalladii aan xusuusta waxaa ka mid ahaa ilaahay buu leeyahy ilaahayow maxaad ilaa zamankan ii soo noolaysay maxaad ii soo gaarsiisay zaman alfitan oo gacantayda gacan naag ajnabiya ay taabato ilaahu maxaad intaa ii soo daysay ood cumrigayga intaan usoo gaarsiisay saasuu u wareegaya guriga ku wareegaya oo ooyaya gacanta saa u haysta saa u wareegay markii dambena qolkiisa ku xarooday bil bukaa ku xarooday marka hadda markii hadda aan soo weynaaday oon isweydiiyo ayaan waxaan idhaha maxaa dembigoo ka soo gaaray yani leesh ma ogeyn inay qof dumar tahay ma ogeyn markaa uu salaamay ma uusan garanayn ma wax dembiyaa meesha ka soo haleeli kara anigu wax dembiga kama soo gaar walaakiin khawfka iyo cabsida iyo say isu ilaalin jireen waxa ilaahay uu nahiyey inay ka fogaadaan ayaa halkaa gaarsiisay waa markaa idinkala hadlayo dadkaan aniga soo gaaray fa kayfa dadkii ana soo gaarinay salafu saalixiinta ahaa ee maaragtay khayrka iyo wanaagga laga sheegay kolleyba marka ikhwaani waana idinku dheereeyey hadalkana allah nagu anfaco kulligeen ilaahayna waa iiga sarreeyaa anaa idinka baahi badan waxa aan sheegayo oo dhan nin aniga xaggaas dhinacaa marka leeyahy waana u sheegay sheekh cabdilbaasado markuu yidhi mowduuca laga hadlayo cabsi ilaahay ninka aniga waxaabaan qabaa qof iga liita maba jira dhinacaas walaakiin markii aanu iswaanino insha allah ilah waxaan ka rajaynaynaa inuu xaqaa'iqdeedana siiyo marka rabbigeen aan ka baqno jala jalaaluhu taqwada ilaah aan ku dadaalno fardanna ha lagu dadaalo usarka iyo dumarkana walaalehen gabdhaha ma nala joogaan waa joogaan hoos soo ma ah ilaahay wax weyn buu idin siiyey wanaagaas aad haysaan ku dadaala oo xijaabka ku dadaala oo xijaabka aa xiranaysaan waa min taqwa allaahi bay ka mid tahay cabsida ilaahay baa kuu geysay qofka dumarka ah waxaa fitradeeda ka mida inay quruxdeeda ay muujiso qur-aankaaba sheegay waman yanshau fi lxilyati
وهو في الخصام غير مبين ومع ذلك إن قروح هذا أضو مشى جوجا أتقرشه ومن تقوى الله سيدا أوغادا ومحبة إلهي كالقعيل درتيش باتساء سميسين سيدا ذلك السيوضة أو أسهرك إن تقوى الله عز وجل كلية أذيقي إلهي وحدين لحية كلية ما أذيقي معاشرة هذا زوجك يا أهلك يا تربية عيالك أنت صور باسو قليسة قرآنك يا مراكزتي يا خيرك كد ذالا توفيقنا الله نوافجيو بارك الله فيك